saacadihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada ay ku wada xiriirto haystay sawirkan aad arkaysaan. nin iyo naag wejigeedu wada dhiig yahay oo hoosta iskaga jira misna isku qanacsan ayuu muujinayaa sawirka. balse gabadha ayaa mid si xun loogu garaacay wejiga, sidoo kalena dhaawac weyn ayaa kaga yaala wejiga kaas oo ka soo gaaray garaacii la garaacay. sida sawirka idinka muuqataba dhinacyada sanka waxaa kaga dhigsan faashad kadib markii uu halkiisii ka dhaqaaqay sanka. gabadhan ayaa la sheegay inuu dhaawaca iyo jirdilka u geystay ninka garab taagan oo ah jaceylkeeda. sababaha uu dilay misna dhaawacan aad arkaysaan uu u geystay ayaa la sheegayaa in ay tahay kadib markii uu ku arkay iyadoo nin kale telefoon kula hadlaysa isagoonan hubsan ayuu sidan u galay. habadila muxume waxa uu ka beegsaday sidii bahalkii wejiga oo aan ognahay inuu yahay meesha kaliya oo laga qiimeeyo dumarka, sidoo kalena ay dumarku aad ugu dadaalaan inta badan sidii ay u noqon lahaayeen heego muuqdheer. dadka qaar ayaa sheegaya jacayl uu qabay dartiis inuu ugu hinaasay maseeray telefoonka ay ninka kale kula hadlaysay, kadibna uu sida aad arkaysaan ugu beegsaday wejiga sidii xayawaanka. ugu dambeyntii qoyska ay gabadha ka dhalatay oo aad uga cadhooday dhaawacan uu u geystay ninka gabadhooda ayaa waxay go'aansadeen in ay xiraan oo ay jeel ka dhigaan ninka gabadhooda sidani u galay. balse nasiib wanaag gabadhii ayaa ku gacan seertay diidayna in la xiro ninka sidaad arkaysaan u galay. ilaan hore ayay Soomaalidu ugu mahmahday nin iyo naagtiisa colna ma ahan heshiisna ma ahan. xaalku markii uu halkaasi marayo ninkii ayaa waxa uu ku codsaday gabadhii inay cafis u fidiso oo ay iska saamaxdo. waxa uuna sidoo kale u sheegay jacayl uu qabo dartiisa inuu sida tan aad arkaysaan uu ugu dilay dhaawacana uu u geystay. jacaylow xaal qaado ayaan ku leeyahay, haddiiba xaalkaagu uu yahay sida bahalkii wejiga aan kaaga dilo dabadeedna cafis aan kaa dalbado. haye gabadhay ma samayn lahayd sidan ay samaysay oo kale gabadha? si ma saamixi lahayd nin sidan oo kale kaaga dilay wejiga? jawaabtaada dhanka kommentiga noogu reeb.